mas-uuliyiinta maamulka gobolka Sanaag iyo kuwa degmada Cerigabo ayaa deegaanka Jidaliye degmada Cerigabo waxay ku soo afjareen isla markaasina heshiis ka gaareen colaad sababtay dhimasho dhaawac oo u dhaxaysa laba beelood oo walaalaha kuwaasi oo wada deegaanka Biyo-Guduud ee gobolka Sanaag ugu horeyna waxa qodobada ay ku heshiiyeen labadaasi beelood oo halkaasi ka akhriyay taliyaha qaybta booliiska gobolka Sanaag gaashaale sare Axmed Saciid Gigaroor waxay labada beelood bariga iyo Nuux Umar gaareen heshiis dhameystiran oo ku saabsan dhammaan arrimaha ku xeeran labada marxuum oo hoos waana sida tan heshiisyadaasi qisaastii uu waliyo damku ka saamaxay Cabdisalaan Axmed Xasan wuxuuna ku bedeshay diyo qodobka labaad marxuum Cabdilqaadir Maxamed Cumar waxa ay beesha bariga iyo ka bixinaysaa xoolo dhan 170 tuldood oo geela oo mag ah iyo gabadh marxuum Maxamed Axmed Jaamac waxay beesha bariga ka bixinaysaa isna 170 tuldood oo mag ah iyo gabadh geela laga bixinayo labada marxuum guud ahaan wuxuu dhan yahay 340 tuldood sidoo kalena waxa halkaasi hadalka isaga kala dambeeyay madax dhaqameed odayaal iyo waxgarad ka soo kala jeeda labada beelood oo halkaasi ku heshiiyay kuwaasi oo cadeeyay inay ku dhaqmi doonaan qodobada ka soo baxay shirkaasi halka kan hadda waan dhageysanayay go'aamada ka dhacay oo ay ku heshiiyeen labada beelood oo halka laga magacaabay marka aan ku horeeyo xagga beesha Nuux Umar anigu ku hadlay afkayga gaarka ah iyo afkii beeshaba sida go'aamada loo sheegay ayaan u qaadanay Biyo-Guduud ee dhex martay labada beelood Nuux Umar iyo Bariga haye sida ay xuseen ama lagu xusay qodobadii laga akhriyay waraaqaha labada beelood way ka heshiiyeen tan waxa weeye waa la heshiiyay way laba beelood baa halka ku heshiisay waa heshiiyeen heshiiskii aanu 6 bilood u fadhinay oo nimanka xigtada ku sugaynay oo ay yimaadeen oo gadaal ka yimaadeen waa ugu mahadcelinaynaa maqallo joogna ka ahaano gebagabadii heshiiskii nabadeed ee laga gaaray shaqaaqadii ka dhacday Biyo-Guduud oo maanta aynu doonayno inaynu gacmaha isku qabsano dhacay heshiiska aad maqlayseen qodobadiisa waxaanu ka ahayn goobjoogayaashii xirayaasha ahaa labada dhinac u kala ahaa xirayaasha hawshaasi tani way noo dhamaatay laakiin hal laga tashado Biyo-Guduud nabadeynteedii inaan loo kala dareerin in la samro oo la dhameeyo dhibaatada ba dadku is dheeriya shaaynu gaadhnay maamulahaan iyo qabiilahaanba waxaanu u gudbi doonaa insha Allah wajigii labada maqsoo ururintii iyo intii dambe xaalkii iyo boqorka muxuu ahaa intuu sheegay Biyo-Guduud gacan marinteedii marka waxaan leeyahay tan waa la aqbalay aad baan yar soo dhaweynaa marka xiga dhammaan waxaanu maartay aan soo dhaweynaa labada beelood walaalaha ee mashaqada yar ku dhex martay ee ka heshiiyay gabagabadiina waxa halkaasi ka hadlay maayirka degmada Cerigabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo barasaabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalin Tiimbaro ilaahay waxaan ka baryaynaa sida hawshaas u gabagabowday inay ku dhamaato oo waxba ka soo noqon eerka wadamada ku dhacday ee sabirtay ilaahay wax lagu bedelo awalka qabanaasiyo walaal gobasha dhigtay inta nabadda raadiyeysay ee ku kharash gareeyay inta uu dhabar dhigtay ee halka joogtay ee ku talagalay nabadda maliyana ilaahay waxroon iyaguna ugu bedelaan soo saamaxno ninka cawso wax ku haysto iska siidaa shaydaanka iska naar raaciid billaah min shaytaan rajim cidii qacanta ku dhacday iyadoo muddo maqnayd ina soo ajiibtay maantana go'aamadeena qaadatay ilaahay waxaynu uga baryaynaa inuu cisi iyo sharaf iyo karaamo u siyaadiyo qoran bariga ee gogosha dhigtay culays badan baa ku dhacay Saciid Muuse Faarax Cerigabo.